بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد walaalyaal kusoo dhowaada casharkii shanaad ee xuquuqda rasuulka ku saabsana calayhi salaatu wasalaam mar kasta oo aan xuquuqda nebi moxamed si fiican u baranno waxaa kordhaya jacaylka aan jeclaano, waxaa kordhaya ku-dayashada aan ku daysanno, waxaa kordhaya in aan isku dayno inaan mar kastaba ku noolaano noloshii nebiga calayhi salaatu wasalaam. maanta waxaan ka hadli doonaa ammaantii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ammaanay nebigeena calayhi salaatu wasalaam, qadarkiisa uu weyneeyey, raxmaddii uu ilaahay ku tilmaamay ayaan ka hadli doonaa nebiga calayhi salaatu wasalaam. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka kariimka wuxuu ku leeyahay: laqad jaaءakum rasuulu min anfusikum casiizu calayhi maa canidtum xariisu calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim. ilaahay wuxuu leeyahay waxaa idin yimid rasuul adinka naftiina ka mid ah oo ay ku culus tahay dhibkiinu, wixii dhibaho adinka idin qabsadaahay asaga ay ku culus yihiin, kuna dadaalaya, idinku dadaalaya oo in aada hanuuntaan ku dadaalaya, muuminiintana kii u turid badan oo u naxariis badan ah. culummada islaamku markii ay ka sheekeynayaan aayaddan waxay yidhaahdaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu muuminiinta ogeysiiyey, ama uu carabtii ogeysiiyey, ama ree makaba uu ogeysiiyey, ama khalqiga dhan uu ogeysiiyey, waa tafsiiro kala duwane, in ilaahay uu u soo diray rasuul ayaga naftooda ka mid ah, rasuul ay yaqaanaan, rasuul darajadiisa iyo ammaanadiisa ay yaqaanaan, rasuul meesha uu ka soo jeedo ay garanayaan, rasuul runtiisa iyo ammaanadiisa ay yaqaanaan, oo ay muxamedul amiin u yaqaaneen intaan xataa lasoo dooran, oo aysan been ku tuhmayn oo been ku malaynayn, aysan malaynayn inuu khayaanayo oo uusan u naseexaynayn, rasuul ay og yihiin carab oo dhan inuu qolo kastaahi ay xiriir maaragtay ay la leedahay qaraabanimad, sida culammada qeyb ka mida ay sheegeen, oo qolo kastoo caraba inta badan nebiga dhaliyo iyo abtiris ayaa u galaya, xiriir ayay la leeyihiin, sida mufasiriinta qeyb ka mida ay sheegayaan. intaas ka bacdi ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkii wuu ammaanay, ammaano waa wanaagsan, awsaaf kariimo ah, tilmaamo cajiibuhu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku ammaanay, oo uu leeyahay casiizun calayh. wuxuu ilaahay sheegay casiizun calayhi maa canidtum, rasuulkaas in dhibka annaga nagu dhacayaahi uu yahay dhib asaga ku dhacayo, uu la dhibtoonayo, uu dhibkeena la xanuunsanayo, uu ka gubanayo, uu doonayo siduu naar nooga badbaadi lahaa, uu doonayo sidii ummaddiisa loogu turi lahaa, uu kala dardaarmay xataa madaxdii inaysan ummaddiisa ka dhibin. u fiirso rasuulku sida uu ummaddiisa ugu dadaalay oo uu uga fakarayay, waxa weeye qof uga fakari jira ma jiro. markaas ayaa ilaahay wuxuu leeyay dhibka waxa idinka idinku ahi rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa ku culus yihiin, ma ogola inaad dhibtootaan. markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa ka fakari jiray, wuxuu diidi jiray in la dhibo ummaddiisa. qof haddii uu madax noqdo inuusan ummadda rasuulka dhibin weye, maxaa yeeley nebigu waa habaara calayhi salaatu wasalaam qofkii inta madax ummadda u noqda haddana dhiba. xadiid saxiix ah uu nabigu wuxuu ku leeyahy calayhi salaatu wasalaam: allaahumma man waliya min amri ummatii shay-a fashaqa calayhim fashquq calayh. ilaahayow qofkii ummadayda tala u qabta, madaxweynuu noqde, ra-iisul wasaaruu noqde, wasiiruu noqde, madaxweyne ku-xigeenuu noqday,
guddoomiye goboluu noqday, guddoomiye degmuu noqday, guddoomiye maaragtay xaafaduu noqday, xafiisuu fariistay. shaqo adigu shaqooyinka ka mida qofkii ummadayda u qabta ee dhibuu yiri fashaqa calayhim ee dhiba fashquq calayhi ilaahayow dhib u fiirso. qofkii ummadda nebi maxamed dhibow, qofkii u naxariiso waayow, qofkii laaluush ku dhibow, qofkii iska daba wareejin ku dhibow, qofkii howlaha loo idmaday qaba waayow, qofkii ummadda aan sidii ilaahay raalli ka ahayn kula dhaqmow, qofkii moodo kursiga inuu asagu iska leeyahow ogow habaarka rasuulka kugu dhacay calayhi salaatu wasalaam. waana xaqiiqo nebi maxamed habaarkiisa in ilaahay uu ajiibayo. sidaa darteed lama arkin qof inta mas-uuliyad qaaday ummadna khayaana kulli baana lama arkin. si kasta hadduu hanti kasta dhaco, wax kasta uu isdaba marsiiyo, aakhirka faqri iyo baahi iyo dhibaata u dambaysa. marka nebigu wuxuu leeyahy ilaahayow ummadayda qofkii xil u qabta ee dhiba ilaahayow dhib. ma u malaynaysaa inuu habaarkaas ka badbaadaysid? dhanka kalena qofkii aan dhibin u fiirso. waman waliya min amri ummatii shay-a farafaqa bihim farfuq bih. ilaahayow qofkii ummadayda mas-uuliyad u qabta, madaxweyne u noqday, ra-iisul wasaare u noqday, wasiiru u noqday, guddoomiye degmo u noqday, guddoomiye gobolu u noqday, xilu u qabtay, shaqo gooniya iyo mid gaar ah ummadda mucaamalo kala dhexaysuu qabtay, waana u turay, waa u naxariistay, howlahoodii u fududeeyey. ilaahayow qofkaas u dhimri, ilaahayow u tur, ilaahay u naxariisaa nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam. u fiirso qofka marka shaqadaas hayaahi ee ummadii u turaahi ducadii nebi maxameda u socota calayhi salaatu wasalaam. allahu akbar. bal labada qof fiiri, labadaba ilaahay subxaanahu watacaala ducadiisa inuu aqbalayo waa la hubaa. marka ilaahay wuxuu leeyahay rasuulka sidaas ah ee aan dhibka idiin ogolayn, ee dhib yar hadduu idin soo gaaro idinla dhibtoonaya, oo culayska asagu dareemaya, oo dhibka idinka idin haystaa inuu asaga haysta dareemaya, rasuulkaas ayaa idin yimid oo ilaahay idiin soo diray. casiizun calayhi maa canidtum way rasuulkaas, xariisun calaykum. rasuulkaasi waxa weeye waa mid idinku dadaalaya, waa mid doonaya naarta inuu idinka badbaadiyo, waa mid doonaya in aan qof naarta gelin, waa mid doonaya inaan qof dhibtoon. wuu idinku dadaalaya huu leeyay nabigu ilaahay subxaana wa tacaala. nebi maxamed wuu idinku dadaalaya. rasuulku wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixaho aayadda u markhaati kacaya sida uu noogu dadaalayay oo naar inuu naga badbaadiyey uu doonayay. ayuu xadiid saxiixu muslim ah iyo bukhaari intaba ku yaala. wuxuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam mathalii wamathalukum kamathali rajulin awqada naara fajacala aljanaadibu walfaraashu yaqacna fiiha wahuwa yadubuhuna canha وأنا آخذ بحجزكم وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. وفرسو نبي وحولي أنيقا إي أدينك هدي أن تلمان تينا شاقو تلمان هدان نقب بحيو سيدا أن إدين كوغو داداليو أو أن إدين كوغو نحريسانيو أو أن نارتا إدين كغا إلالينيو أو أن حريس إدين كوغو هو إدين كوغو داداليو بدباددين يا أدينكو سيدا أد dembiga ugu dhacaysaan oo aada naarta ugu cararaysaan haddaan tusaale idinka siiyo, waxaan la mid uhu yidhi nin dab shitay oo dabkii markuu shido waqtiga roobowda ah, haddii qofku habeenkii oo kale dab shido, waxyaalaha cayayaanka ah haadahaadaha dhan ayaa dabka kusoo yaaca. marka dabka uu shita ayaa haadahaadihii iyo koronkoradii waxaa dhan kusoo yaaceen, markaasuu ka celinayaa asagu dabkaas inaysan ku dhicin ayay doonayaan, ayaguna waa ku dhacayaan dabkii rabaa inay ku dhacaan. markaa nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam sidaasoo kale anigu guntigan idin qabanaya, meesha macwista laga xirtay iyo surwaalka iyo ayaan idin hayaa si aan naarta idinkaga badbaadiyo oo aadna naarta ugu dhicin, ayaan halkaas idinku dheganahay. waa adinkuna waa iga baxsanaysaan, gacantayda ka fakanaysaan, naarta u cararaysaan. macnuhu waxa weeye waxaan idinkaga digayaa had iyo goor iyo mar kastaba naartii acmaasha idin geylaheed, idinkuna waxaad la imaanaysaan wixii naarta idin geylahaa. marka nabigeenu calayhi salaatu wasalaam sidaas ayuu ummadda ugu naxariisanayay,
sidaas ayuu ugu dadaalayay, sidaas ayuu noogu dadaalayay sala allahu calayhi wasalam. xariisun calaykum, maxaa ilaahay daba dhigay? bilmu'miniina ra'uufu raxiim. allahu akbar. halkaas ilaahay wuxuu kasii sheegay turidda uu noo turayo iyo raxmaddiisii. casharkeenna dambe ayaan raxmadda rasuulka uga sheekay doonaa calayhi salaatu wasalaam. intaas ayaan kusoo koobaynaa. wabilaahi towfiiq. wassalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu.